The regions ruled by the Tigray People's Liberation Front, or TPLF. Today, the apostate Ethiopian has stabbed Ethiopia. What makes this attack one of the most shocking attacks is that TPLF is viewing the Ethiopian National Defense Forces as a foreign army. የመከላከያ ሰራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራ አገሪቱን የማዳን ተልዕኮን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል command post ciidanka loo yaqaano waxa lagu amray ama lagu wargeliyay in ay wadanka difaacaan laga bilaabo saacada uu Facebook soo dhigay fariinta ra'iisul wasaaruhu ቀዩ መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል hadda waa la dhaafay ama waa la gudbay xariiqdii guduudka ahayd ama xariiqdii casaanka ahayd ee la iska ilaalinayay waa la gudbay አገርና ህዝብን ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ሆኗል meeshii ugu dambeysay ee hadda laga hadlay waxay noqotay in dalka iyo dadka la difaaco waa meeshii ugu dambeysay ee ay dawladdu gaadhay ኢትዮጵያ ሀገሮችን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተል በየአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎችን በንቃት እንዲቃኝና ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንዲቆም ጥሪን አቀርባለሁ waxaan shacbi weynaha Itoobiya u soo jeedinayaa meel walba oo uu ka dhacayo dagaalku ama dagaal lagu qaadayo shacbiga degani in ay garab siiyaan ciidamada militariga Itoobiya ama command postiga loo yaqaano بسم الله الرحمن الرحيم وردي waxa uu sheegayaa in uu xoogeystay dagaalkii ka socday gudaha Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigrayga ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmedna 3 jeer ayuu warbaahinta soo fariistay xalay oo kaliya isagoo oo dagaalka hadba dhan uga hadlay oo hadba dhinac u sheegay waxa uu sheegay in dagaalka kooxda Tigraygu ay soo qaadeen oo amxaarada ku qaadeen sida darteed wuxuu sheegay in la soo afjarayo wuxuu kaloo sheegay in maamulka Tigrayga awoodiisa iyo maamulkiisa meesha laga saaray oo uu igmaday saraakiisha ciidanka militariga Itoobiya oo isaga ka amar qaadanaya duulimaadka deegaanka Tigrayga waa la joojiyay laakiin warar hadda soo baxay ee waxay sheegayaan in xooga jabhadda Tigraygu ay iminka ma taqaanaa sameynayaan iska caabin xoogan oo ay ka adkaanayaan ciidankii militariga iyadoo sidoo kale wararku ay sheegayaan in ma taqaanaa saraakiishii ugu sareysay ciidanku ay ka diideen amarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed marka hore intaan idin saarin muuqaalada waxaan marka hore aan rabaa inaan idin soo bandhigo qodobo xasaasi ah ku saabsan waxa meesha ka socdahay waxa la yiri number 1 saraakiishii ugu sareeyay ciidanka ka amar diideen Abiy Ahmed baa la yiri midaasi oo ku qasabtay inuu dib shaqada ugu soo celiyo generaalo 10 sano ka hor shaqada laga fariisiyay Abiy Ahmed waxa kale la yiri oo halka ku qoran waxa la yiri Abiy Ahmedna waa uu ka guurayaa la yiri madaxtooyadii magaalada Asaba ee caasimadda ahayd waa uu ka guuraa la yiri waxa uu ku sugan yahay oo uu iminka joogaa ma taqaana xarunta ciidamada cirka ee Dabra Zayd ayaa la yiri Dabra Zayd uu joogaa oo ka tagay way isku aamini waayay Asaba waxa kale la yiri warshadii dariska ciidanka ee ku yaala ayaa la yiri Tigrayga oo soo saaray waxay soo saareen la yiri 200 oo kun oo dariska cusub ee ciidanka ay soo saareen ayaa la yiri oo ciidanka federaalka Itoobiya waxa laga hadlayaa waxay u qaybiyeen dadka shacabka ahaa ee Tigrayga iyo jabhadii OLF loo yaqiinay ay u qaybiyeen dagaalku galaan waxa la yiri dhammaan ciidankii baa la yiri ku sugnaa waqooyiga Itoobiya oo waxa ma taqaan oo uga digay ciidanka federaalka ahi haddii joojin waayeen duulaanka inay asaba subax qabanayaan ciidankii baa yiri joogay ciidankii joogay waqooyiga ku sugnaa waqooyiga Itoobiya waxay ay wadigeen ciidanka federaalku inay joojiyaan dagaalka waxay yiraahdeen haddii joojin weysaan duulaanku asaaban gelina oo aan qabsanaynaa taasina waxay ku qasabtay Abiy Ahmed laftiisu inuu meesha ka guuro oo saga tago የመከላከያ ሰራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራ አገሪቱን የማዳን ተልዕኮን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል command post ciidanka loo yaqaano waxa lagu amray ama lagu wargeliyay in ay wadanka difaacaan laga bilaabo saacada uu Facebook soo dhigay fariinta ra'iisul wasaaruhu ቀዩ መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል hadda waa la dhaafay ama waa la gudbay xariiqdii guduudka ahayd ama xariiqdii casaanka ahayd ee la iska ilaalinayay waa la gudbay አገርና ህዝብን ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ሆኗል
meeshii ugu dambeysay ee hadda laga hadlay waxay noqotay in dalka iyo dadka la difaaco waa meeshii ugu dambeysay ee ay dawladdu gaadhay ኢትዮጵያ ሕዝብ ነገሮችን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተል በየአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎችን በንቃት እንዲቃኝና ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንዲቆም ጥሪን አቀርባለሁ። waxaan shacbi weynaha Itoobiya u soo jeedinayaa meel walba oo uu ka dhacayo dagaalku ama dagaal lagu qaadayo shacbiga degani in ay garab siiyaan ciidamada militariga Itoobiya ama command postiga loo yaqaano sidoo kalena war soo baxay waxa uu sheegayaa in jabhadii OLF2 oo isu dhiibeen 260 askari oo ciidanka liyuga Oromiya ah iyo sidoo kale to 194 waxa la sheegay ciidanka federaalka ah waxa la hubeeyay loo xiray ciidanka dariiska ciidanka qaranka qof kasta oo 20 jir gaaray oo deegaanka Tigray u dhashay dagaalku wuxuu xoogan yahay wakaaladaha wararka caalamka iyo TV-ga ma taqaanaana waxay soo tabinayaan Abiy Ahmed oo hanjabaya oo dhaaranaya Tigrayguna dad muddo diyaar garoobay dagaalka u diyaar garoobay inay yihiin ayaa la sheegayaa xaaladda Itoobiya ma fiicna safaaradaha beesha caalamka ee asaabuno shirkadda wasaaradda arrimaha dibadda la yeesheen war saxaafadeedna way ka soo saareen waxayna codsadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka oo aan dadka la dhamayn marka ciidamada Itoobiya ee cirka ee Abiy Ahmed ka amar qaato ayaa waxa ay duqeynayaan deegaanka Tigrayga xildhiyaasha dhinaca dagaalka marka ay falaqeynayaan arrintan waxay leeyihiin loogama adkaan karo sidaas halka ah loogama adkaan karo Tigraygu waa niman dagaalka u carbisan oo jabhada oo adag oo aan jajilaa iyo nacasnimo lagu aqoon bay leeyihiin sidoo kale waxay leeyihiin dadka xoogaalka ahi oo Itoobiya gudaheeda joogahay Tigraygu muddo ay diyaar garoobeen oo waxay haystaan warshadii hubka haystaan oo waxay haystaan saanad military oo waxa leeyahay lidka diyaaraduhu waa haystaan oo way adkaanaysaa in sida fudud ee Abiy Ahmed uu isugu qaaday Tigraygu ugu adkaado Tigrayguna runtii muddo dheer ay dalkan xukumayeen oo dhaqaalihii dalka iyo hubkii dalka kulli way qaateen oo halkaas Tigrayga xaqiisa u jira marka dagaalku waxa laga yaabaa in ciidamada federaalku ay kala goostaan oo ay kala tagaan oo ay kala shakiyaan waxa laga yaabaa inay israacaan garab kamid ah Oromada iyo garab kamid ah Amxaarada waxa laga yaabaa garab kamid ah Oromada iyo garab kamid ah Tigraygu inay soo raacaan Soomaalida ninka madaxweynaha u ah deegaanka Soomaalida ilaa Mustafa Cagjar laftiisu wuxuu dagaal xoogan kula jiraa Tigrayga oo waxa muuqata inuu la safan yahay isbahaysigan Amxaarada iyo Oromada inuu la safan yahay ku siyaasadda ayaa muuqato marka loo fiiriyo dhigaaladiisa marka rag heer federal wasiir ah iyo gudoomiyihii mataqaanaa aqalka sare ama golaha shacabka iyo rag badan oo Soomaali ah oo mataqaanaa federaal ka tirsanna jijiga yimaadeen marka sida muuqata Itoobiya iminka naaskii colaada ay jaqaysaa Itoobiya sida hore xaalku ma aha waa laga yaabaa dagaalka inuu ka dhaco gudaha mataqaanaa Asaaba Abiy Ahmed laftiisa laga yaabaa in inta dagaalka uu socdo afgembi lagu sameeyo oo ay Oromada afgembi ku sameeyaan sababtoo ah Abiy Ahmed laftiisa siyaasaddiisa ma degana oo raggii ku siyaasadda ahaa ee la safnaa ee horseeday in mataqaanaa kacdoon uu ka dhaco Itoobiya oo xukuumaddii TPLF meesha laga saaro ayuu liin dharaanta ku cabsiinaya xabsiga oo Jawar Maxamed baa kamid ah raggaas ninkii fanaanka ahaa Oromada kicin jirna waa uu jaan leeyahay oo isaga lagu eedeynaya dilka ninkaasi fanaanka ah marka raggii mucaadka ahaa ee jabhadda Oromiya iyo raggii mataqaanaa qayru labaduba liintii cabayaan oo Abiy Ahmed abaalkii u galeen ee horseedeen inuu ra'iisul wasaare dalka noqonin Oromo ah isaga ah umuus abaal gudin marka halkaas lafteeda laga yaabaa in dabarjibin xoogan ay kaga timaado oo Oromadu laftooda odayaashii ugu sareeyay Abiy qaabku uu wax waday sida uu dhaqmay Jawar Maxamed iyo sida uu dhaqmay hogaamiyaasha jabhadda hubeysan ee Oromadu kuma qanacsana lafteeda marka dhinaca kale taa Soomaali laga fiiriyo inkastoo Mustafa Cagjar uu la dhacsan yahay dagaalkaasi lagu qaaday ee duqeynta ah ee dhulka mataqaanaa ciidanka federaalka militariga Itoobiya dhulka ay ka qaadeen ee cirka ay ka qaadeen ee lagu garaacayo Tigrayga inkastoo Cagjar la ku qacsan yahay haddana Cagjar iyo jabhadii gobolka Soomaaliyeed ee jooxu ama OLF taqaanaan meel xun buu xaalkoodu maraya oo markii ay dhacday qabri daar oo kaleeto iyo deegaanada qaar banaanbaxayaal waaweyn baa soo baxay kumanaan markii uu hadlay ama ay shirayaan ama ay hadlayaan madaxda jabhadda laakiin markii xisbiga Mustafa Cagjar uu soo baxo wax dad ah ma haysayo oo waxa isu yimaada 5 ama 10 ma dhama taas darteed ayuu ninkii halgamaaga ahaa ee afayeenka
iyo warfaafinta mar u noqday mataqaana jabhadda maxamed ibraahim ee laha qorraxay media iyo halka la gudoomiyaha xisbiga ee qabritaha ka mid yahay ayuu liinta cabsiiyey oo xabsiga dhis sharci darro ah waxaana loo xiriyay raggaasi kaliya sideeba annaga markaan shirayna 10 qof u soo baxda marka idinka aad banaabax ilaamisaana kumanaan kun u soo baxa marka laftiisa waxaa dhici karta in jabhaddu ay Mustafa Abgimbiso inta ku mashquulsan yahay dagaalka u dhaxeeyay Amxaarada iyo Oromada iyo Tigreega iyo federaalka inta dagaalka ku mashquulsan laga yaabaa in la majxaabiyo oo jabhaddu lafteeda ay ku bilowdo cajar marka xaaladda Itoobiya ee dhulka gumeystay ee Soomaalidu waa alu sahal oo lama dhihi karo iminka halkaasi nabad baa ka naasac lama dhihi karo beesha caalamkuna walaacaas way qabtaa asaba gudaheeda waa laga yaabaa Tigreegu inay ku leeyahay rag saraakiilaha jiro Tigree ah iyo taliyaal iyo jeneraali korneelo ayaa jira dhaqaaliyahano Tigree ayaa jira waa laga yaabaa lafteeda in halkaasi ay ka sameeyaan inqalaab military inay weeraro gaadma ka sameeyaan oo laga yaabaa Tigreegu nima la sahlan kara Tigreega ma aha sidoo kale waa laga yaabaa in dagaalkii Itoobiya iyo Eritrea u dhaxeeyay uu dib u curto oo Asiyaas Fawaaki laftiisu uu dagaalka soo galo waa laga yaabaa oo taa lafteeda marka loo fiiriyo xagga dhaliyada waxa leeyahay nimanka Tigreega iyo kuwa Eritreanka ahi waa wada dhashin waa isku luqad baa leeyahay wax isku hayeen dhinaca xuduudaha iyo adu waa un dad beela isku qabiyaha leeyahay oo xag dhinac kasta ka siman oo DNA-goodu uu saamiya marka bal aynu fiirino Abiy Ahmed oo soo muuqanay TV-ga waxa uu leeyahay Prime Minister Abiy Ahmed launched a military offensive in the northern Tigray region, accusing the opposition-led local government of attacking federal troops and looting their assets. The regions ruled by the Tigray People's Liberation Front, or TPLF. Today, the apostate Ethiopian has stabbed Ethiopia. What makes this attack one of the most shocking attacks is that TPLF is viewing the Ethiopian National Defense Forces as a foreign army. qaraarka golaha wasiirada Itoobiya waxa lagu cadeeyay in la ilaalinayo midnimada amniga wadajirka iyo mustaqbalkiisa haysi ee dalkaasi sidaas awgeedna waxa la sheegay in loo qaadayo tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo sida ay u hirgeli lahaayeen midnimada amniga iyo wadajirka Itoobiya wax loogu yeeray cadow isbahaystay laguna eedeynaya inay ka soo horjeedaan qarannimada Itoobiya oo loola jeeday TPLF Tigreega ayay sheegeen golaha wasiiradu inay la dagaalameen ciidanka amniga Itoobiya waxaana la xaqiijin khasaare xoog leh oo ka dhashay sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Tigreegu waxa ay qaniineen ciidanka ilaalinaya sarooyinka dheer ee amnigooda sugayay hadi Ethiopian waqtawatan Ethiopia yaagorrasa ijwa shacabka dalkayga ee qaaliga ah maanta muwaadiniin dalkooda inkiray ayaa Itoobiya soo weeraray waxay qaniineen gacantooda qoodisay iyo naaskii ay jaqeen ciidamada gaashaandhigga ee 20kii sano ee la soo dhaafay nabadgelyada shacabkooda iyo dalkooda godka dacwada ugu xirooday dhiigooda u soo daadiyay naftooda u soo huray una soo dhaawacmay ayaa xalay marka laga soo bilaabo Maqale ilaa meelo kale oo kala duwan ayay xoogagaasi dalkooda inkiray iyo kuwa iyagu abaabuleen geystay weeraro aad looga yaxyaxo oo ah kuwii ugu foosho xumaa ee dalka ka dhaca oo xataa aan loo geysan ciidamada Itoobiya ee wadamada shisheeye ku sugan weeraradaas oo keensaday in dad badan lagu dilo kuwa badanna lagu dhaawaco oo hantina ku burburtay እንዲቆስሉ ንብረቶች እንዲወድሙ ተደርገዋል በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች ባሰለጠናቸው ባስታጠቅ go'aanka golaha wasiirada waxa lagu burburiyay dhammaan hay'adihii maamul ee ka jira gobolka Tigreega waxa kaliya oo ka shaqeynaya gobolkaas ayaa ah muddo ku siman 6 bilood amarada saraakiisha militariga oo kaliya waxayna toos iyana u hoostagayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo dastuurka Itoobiya uu siinayo inuu yahay taliyaha ciidamada guud dhamaadka shirka golaha wasiirada kadib waxa uu riyaasha haddana mar kale la hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wuxuuna xusay wax kasta ay sidooda ku soo laaban doonaan marka ciidanka amnigu ay soo celiyaan buu yiri kala dambeyntii dalka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkan oo ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada oo ay si baan isku hayaan Tigreega ayaa sheegay in weerarkii xalay lagu bilaabay deegaanka qoomiyadda Amxaarada wuxuu sheegay in ciidamada amnigu difaaceen shacab la doonayay in la dhibaateeyo sidaas oo kalena wuxuu qiray inuu jiray khasaare ka dhashay duulaanka irdaha wada hadallada oo dhan ayuu sheegay in xirmeen oo aysan Itoobiya gorgortan ka galin isbedelada iyo waxa uu ugu yeeray dawladnimada curdanka ee xorriyadda ogol
isagoo sheegay in kuwa diidan ay doonayaan inay dib u geystaan dalka isla markaana ay soo celiyaan xukunkii arxandarrada ahaa ee Itoobiya ka jiray 28 sano ee la soo dhaafay kaasoo ula jeeday kaadirkii uu leeliyay Mille Zanaawi geeriyooday